dadweynaha gobolka Sanaag oo dhan ilaa intaanu Sanaag soo galnay guud ahaan waa u mahadnaqaynaa gaar ahaan magaalada Ceerigaabo maanta wacdanaha ay guujiyeen iyo isu soo baxa intaan leeg iyo kalgacalka iyo niyadda san iyo shucuurta aan nagu soo dhaweyseen anigoo ku hadlaya magaca wafdiga iyo xisbiga aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr mahadnaqa kadib laba qodob uma ka hadlay intii kale waa laga hadlay arrimaha horumarka ee dalku u baahan yahay horta annagu waxaanu nahay xisbi kulmiye la yidhaahdo oo barnaamij ku socda oo 7 sano ka hor dadka u keenay barnaamij qoraal ah markii ugu horreysay xisbi keeno waxaanu qaban doono barnaamijkii qorana waa wax lagu socon karo laga haleexan barnaamijka oo islaa 100% waa fulisan wax yar baa ka dhiman haddana waxa noo diyaara annagoo ka hooyo waayaanimo ka qaadanay oo wixii naga soo dhibaatay naga horiyada baranay qorshihii labaad oo haddii la ilaa markaan noqono aanu soo baahin doono oo ah qorshaha 5 sano ee soo socda Sanaag maxaa ugu jira priority 5 sano dambe shantii hore Sanaag waxa ugu jiray nabadayn wadada Ceerigaabo cusbitaalka iyo biyaha iyo waxbarashada waxay u kala mudnaayeen marka loo eego dhaqaalaha dalka waxa ugu cuslayd wadada Ceerigaabo 5 sano dambe wadadii Ceerigaabo inteedii badawaa soo kharashku baxaya uu yaraanaya 6 bilood ama sanad ka horeeyna way ku dhamaanaysaa waayo kharashkii oo dham iyo culaysku uu dhamaaday in yar baa ka harsan Ceerigaabo waxyaalaha ay u baahan tahay inuu koobaad u siino waxa weeye horta waa horumarinta xeebaha oo ay khayraad badan ku leedahay iyo wadooyinka isku xidha xeebaha iyo laabida Ceerigaabo joogta waxa kaloo mudnaanta koobaada waa biyaha waayo dad badan baa waxay arigaga dhan bari baa la geeyaa waayo maxaa loo keenayaa dalku bari uu badan yahay balaaraya waana oo male marka biyuhuna waa talabaad qodobka saddexaad waxa weeye xoolaha sidii noloshoodii haday abaarihii bateen oo soo noqnoqdeen oo labada sano abaarina helayso waxaynu qorsheynaynaa xoolaha sidii loo dhaqi lahaa sidii hore reer gureegaasi ka duwan marka xoolaha biyo xoog loo helo waxa loo abuurayaa calaf dabeetana way dhaqmayaan iyaga oo reer gureega ahayd qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa in dhameystiro cusbitaalkan oo aka ugu casrisan ee dalka laga dhisayo qodobka afraad ee aan xooga saarayna ee barnaamijka ay ku jiraan waxa weeye horumarka waxbarashada iyo caafimaadka waxa xooga la saarayo dhakhtarku dhamaado xoogna loo saaro degmooyinka hooyooyin ubadka iyo dhallaanka iyo hooyooyinka dhallaanka 5 sano ka yar arinta waxbarashada ee tacliinta waxaan qorsheysan 5 sano in tacliinta u bedelo gaar ahaan gobolka Sanaag waxyaalaha khayraadka shaqo lagu heli karo inuu ardaygu kaga soo baxo dugsiyada xirfadaha gaarka ah baa ardaygu inuu barto computer iyo business oo kaliya iyo management gobolkan maadaama uu xeebleeyay waa inaanu abuuraa iska xirfadihii ama kolleejyadii lagu baranayo badda marideeda iyo wax soo saarkeedaba waxaynu u baahanahay gobolkan waxa noo qorsheysan in laga furo oo lagu xoojiyo kolleejyadii xanaanada xoolaha iyo dhaqaaleynta xoolaha gobolkan waxa u qorsheysan in loo sameeyo institute ama kolleejyadii lagu baran lahaa geedkan cajaa'ibka ah ee ilaahay ka abuuray gobolkan ee la yiraahdo faraanka iyo xabagta intaasi waa in loo helaa aqoon waa wax soo saar ka lamid ah xoolaha iyo kalluunka laakiin wali aynaan si cilmi ah ugu furin iskuulo iyo jaamacado balse dadka badankiisu aan raay ka haysan waa se muhiim intaasi in loo abuuro jaamacado laga shaqeynayo waxa ay say hore ugu marayso intaasi waa qorshayaasha 5 sano ee arslay gobolka Sanaag waa gaar mid baa u gaaro waa arinta dhalinyarada shaqa la'aan baa ka jirta dalka oo dhan
gobolka sanaagna maadaama uu xarunta ka fog yahay shaqalaantu waa usii badan tahay waa hawl guud oo gobollada oo dhan u qorshaysan taana qorshe guud oo qarankaa ka yaala dhallinyaradaas si loo shaqo gelin lahaa ee looga saari lahaa niyad jabka iyo gidaar fadhiga iyo mararka qaarkood taariifka qodobkan waxaan kaga hadlayaa qorshaha xilliga kulmiye 5 sano haddaba 5 sano ayaa fulinaya kuwii hore odayaal waaweyn oo la yaqaanay oo cabdiraxmaan axmed cali oo la soo kulmay markii dalka la xoreeyey cigaal oo in badan hay'adaha qaranka inoo dhisay riyaale oo 6 sano nabadgelyo ay nahayey siinayo oo ku suntan magaca madaxweynihii horumarinta qaranka maanta waxaa tartamaya ragaan hore maamulada waaweyn loogu badan nin baher waa soo maray waa 3 murashax mid waa wadani waa cabdiraxmaan waa ciro midna waa kulmiye musabixi baa la yidhaahdaa midna waa ucido faysal cali waraabaa taagan faysal waxba oran maayo maalinka wuxuu warnamayo laba goor hore waa sabuuxday daana waa idinku weynhay aan ii duceeyey maagidaysan tarqarada marka odayskeeda afbay isagoo halkaas us dhigay haddaba cirana anugu ma aqaano oo wax badan ka sheegi maayo waanu isku waqti ahaynaya ma aha dhawaan baanu soo nimid waa nin odaya oo aad iyo aad u wadaya oo mudakarka somaliland ka bilowda afbaayo haddaba anigu maxaa la sheeganaya musabixii kulmiye loo soo curaado muxuu la sheeganaya xagaabu ka soo baxay jaamacaduu soo maray bal waxaanu ka eegnaa ceergaabaan doonaya inaan arrintaas uga sheego oo mar walba ka hadla bal hadda anigu xaggaa soo maray maxaan ceergaabo doortay horta ceergaabo maanta waxa sidii uu sheegay ninkii igu horreeyey waxaan ugu qeyraya tahay magaalada somaliland ugu ilbaxsan ugu degan dhallinyaradeeduna ugu fiican tahay ayaan u qeyray bari iyo galbeed iyadoo oo aan cidna qorshayn iyadoo oo warwar badan xisaabta laga qabo ayay labadii xisba ee wadani iyo kulmiye maanta ku kulmeen magaalada ceergaabo labadii qoloba calamadooda way la taagnaayeen ilbaxa ugu horreeya waxa weeye sida laysu ogol yahay ee ilbaxnimada dimuqraadiyadda ee dhallinyaradii halkaa joogtay nin waliba calanka ninku taageeraya u lulaayey ee nabadda iyo ilbaxnimada loo joogsay koow baa ka qaatay broka ceergaabaa qaatay hargeysa oo caasimadda gool baa ka dhalisay gool baa ku maqan markay iska bixinayaan adeeradeeda maadaama ilbaxa aad tihiin waa in aan hore u yar baraay balan ceergaabo waa meel wanaagsan aan isu sheegay si aan codkeedoo dhan u helay ceergaabo anigu waxaan ka soo baxay arrin bata jaamacadda siyaasadda ee weyn qalinkan waxay qabtay allah naxariistay lixdi iyo maxamed cali kasoowaadkiina waxa qalinka ay qabtay fagare iyo yaasiin xaaji nuur oo nuskalaas ahayd iyo hurre oo nuskalaas ahayd iyo guray farax dawaare intaana isku arday jaamacadda abaanu ahayn ka soo wartay siyaasada iyo wadannimada isku jaamacad baan ka soo baxayoo lixda macallin oo wada ahaa iyo aadan shiinay kasoowaadadiina waddanka la soo galay waxaa qalinka iyo duulka noo qoray sheekh ibraahim iyo dhool maxamed dhool la yare iyo sheekh abibakar malawaa reer bolo mataqaani masogoyaad baa taqaanine odayaashii guurta ahaa nabadaynta oo markaa guddoomiyahooda weyn ahaa garaad cabdilqani waxaanu ka bilownay markaa in la yidhaha somaliland see loo abuura shirkii horreeyana berberaanu ka bilownay kii labaadna burco kii labaadna boorama waxaanu ahayn ardaydii yaryareeda u khidmaynaysay odayaasha oreera guurtiga dalka dhisay jaamacaddaana waa ka soo baxay markii dowlad dhiska la galayna waxaa macallin ii noqday maxamed xaajiraahan cigaalo oo farshaxanka siyaasadda ii bilaabay waxaanu macallin 30 sano ahaa soo maray iminkana ardaydii oo dhan imtixaanka intuu sawaga kuwaan suurkalaas ay ku yidhi war isagaa idinku raana qaranka idin qabto professor filaayo oo anu macallimiintaasaan soo maray shahaada somaliland bal qorayinka kale oo tartamaynaana iyagaa sheegi doona macallimiintooda ceergaabona waxaa leeyahay ninkii jaamacadaha ka soo baxan baa aniga la tartami kara ceergaabo waa haddii bixi maanta aad ku arkay aad isheeda ku wadaan oo siyaasadda dhinacaa ka eegtaan intaasina
انت سنوى عرضنوية ساستي معلمين تيدي أنكسون قال جميع مرلباتك يا بلدكم هذا غيره نيتلا رسول ويسير دايره عرقابنا دايره waxay heshay kaarkay baxnimada oo ku galbeed kula ka waraysan maanta waa taariikhii. Wassalaamu calaykum.